xanaaqa. Xanaaqu waxa uu ka mid yahay dareemaha dabiiciga ah ee aadanaha ku abuuran sida farxadda, naxdinta iyo murugada. Xanaaqu waxa uu keenaa kala fogaanshaha qulubta aadmiga iyo hoos u dhaca caafimaadka shakhsiga. Waxaa jirta oraah Soomaaliyeed oo oranayso xanaaqu waa waali gaaban. Mararka qaar waa la amaanaa inuu qofka xanaaqo sida markii uu cunugaada qalad galo oo aad rabtid inaad qaladkiisa dareensiiso. Ka waran haddii aad maalin walba ka xanaaqdo waxyaabaha sida maalinlaha u dhaca, sida in aad ka xanaaqdo dadka aad shaqo wadaaga tihiin ama bulshada qaybaheeda kala gedisan. Ma isweydiisay saameyn intee leeg ayuu xanaaqa ku keeni karaa caafimaadkaada? Sidoo kale, sidee buu noqonayaa xiriirka kala dhexeeya bulshada? Markasta oo uu bato xanaaqaada, waxaa hoos u dhac ku imaado caafimaadkaada shakhsiga ah. Sidoo kale, waxaa hoos u dhac ku imaado xiriirkii wanaagsanaa ee kala dhexeeya bulshada. Halkan waxaan kuugu soo gudbin doonaa 8 qodob ood ku maareyn karto xanaaqaada. Dhageysiga Quraanka marka aad xanaaqsan tahay waxa uu qayb weyn ka qaataa maareynta xanaaqa. 2. Waxaa wanaagsan in aad qorto mar waliba waxyaalaha kaa xanaajiyo si aad uga fogaato xanaaqa. Isla markii aad xanaaqdo, ka dhaqaaq meeshii aad joogtay, sameeyna socod. Waxa ayna ka caawinaysaa in aad maareyso xanaaqaada. Sidoo kale, waa inaad beddeshaa jawiga aad ku jirto sida haddii aad fadhiday oo kale inaad istaagto. Socodka iyo orodka la sameeyo xilliga xanaaqa waxa ay yareysaa caburka uu qofka ku keenay xanaaqa. Sameynta iyo hagaajinta hawlahaaga guriga waxa ay qayb weyn ka qaataan maareynta xanaaqa. U qaba xanaaqaada waqti. Waxaa laga yaabaa in aad la yaabto qodobkan. Laakiin waxa xaqiiq ah haddii aad u qabato xanaaqa waqti, waxa aad dareemi doontaa nafis wanaagsan. Waxa wanaagsan inaad cunto cunno adag sida kaaroodka marka aad bilowdid ruugida ama calalinta, maskaxdaadu waxa ka yaraan doona cadaadiska badan ee xanaaqa kaaga imaaday. 7. Markasta oo aad xanaaqdo, waxa wanaagsan in aad aado meelaha beeraha ama agagaarka xeebta. Qodobka 8. Xanaaqaada yuusan ku horseedin burbur nololeed iyo mid nafeedba. Waxa xaqiiq ah in aad dib ugu shalayn doonto khaladaadka adag ee aad gasho adiga oo xanaaqsan. Mahadsanidin.